السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inkastoo isticmaalka milixda ee ku darsashada cuntooyinku ay tahay mid lama huraan ah, haddana waxaa dhinac yaalla khatar caafimaad oo laga dhaxlo isticmaalka badan ee milixda. Haddaba website-ka lagu falanqeeyo arrimaha caafimaadka ee la yidhaahdo Health24 ayaa lagu soo bandhigay 9 arrimood oo khatar ku ah caafimaadka bini'aadamka oo la sheegay in laga dhaxlo isticmaalka badan ee milixda. Kuwaas oo kala ah: 1. Isticmaalka badan ee milixda ayaa dhibaato u geysta isu socodka dhiigga ee jidhka, waxaana la sheegay in xataa ay sababi karto wadna istaaga kusoo boodada. 2. Isticmaalka badan ee milixda ayaa la sheegay inuu dhaawac xun u geysta maskaxda, gaar ahaan markay dadku weynaadaan. 3. Isticmaalka badan ee milixda ayaa la sheegay inay sababto igfashanka ku dhaca caloosha iyo nooc ka mid ah gaastariga iyo xataa kansarka ku dhaca caloosha. 4. Isticmaalka badan ee milixda ayaa la sheegay inay kelyaha ka dhigto kuwo aan awoodi karin shaqadooda, isla markaana jidhka ka saari karin sunta iyo qashinka kaleba. 5. Isticmaalka badan ee milixda ayaa la sheegay inay jidhka ku sababto haraad badan, isla markaana ay lumiso isku dheelitirnaanta miisaanka ee jidhka. 6. Isticmaalka badan ee milixda ayaa la sheegay inay shaqada dheefshiidka ka dhigta mid gaabisa, qofkana ku sababi karta dibiro badan iyo calool xanuun joogta. 7. Isticmaalka badan ee milixda ayaa la sheegay inay qofka ku sababi karto dhiigkarka kusoo boodada. 8. Milixda oo ku badata qofka jidhkiisa ayaa sababi karta dhibaato soo gaadha lafaha iyo kala goysyada jidhka. 9. Milixda badan ee gasha jidhka ayaa qofka jidhkiisa ku sababta tamar darro xad dhaaf ah, maqaarka qofkana ka dhigta mid qallalan. Allahayna ilaaliya dhammaanteen. Mahadsanidin.